السلام عليكم داودياشا qiimaha iyo qayaalo waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay amuraha Soomaaliya iyo caalamka wararka waxa ugu weyn garoonka diyaaradaha aadan cad international airport ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ka duushay diyaarad sida dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Abdulrahmaan Umar Ismaan Yariisow iyo xubno kale oo dhaawacmay Qarxiye Xarunta gobolka Banadir oo shalay ka dhacay maamulka Jubbaland ayaa warbaahinta u soo bandhigay rag ajaanib ah oo ay sheegtay in ay ka barbar dagaalamayeen wararka al-shabaab fayeenka maamulka gobolka Banadir Saarax Dheere ayaa faahfaahin cusub ka bixiyay xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banadir injineer Yariisow oo ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay xarunta gobolka Banadir dhinaca kale xoog badan ayaa laga helayaa ciidii ka dambeysay qaraxii shalay galab ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banadir oo ahaa ismidaamin kaasoo dhaliyay khasaaro dhimasho dhaawac oo gaarsiiyay mas'uuliyiin fara badan ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa war ka soo saaray qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee shalay gilinkii dambe ka dhacay xarunta maamulka Banadir wararka caalamkan waxa ugu waaweyn war rasmi ah ka soo baxay dawladda caalamiga ah ee wadanka Tunisia ayaa lagu sheegay inuu geeriyooday Maxamed Beji oo ahaa madaxweynihii wadankaasi intaana waxay ahaayeen qodobada wararkana ugu door karoon imankana u diyaar garooba ayagoo dhameystiran markale isku soo naqad haboon dawadayaasha nagu xiran ee aan jecel lahay aan ku horeyno garoonka diyaaradaha aadan cad magaalada Muqdisho ayaa waxa saaki ka duushay diyaarad sida dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa Muqdisho injineer Abdulrahmaan Umar Ismaan Yariisow iyo xubno kale oo ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay xarunta gobolka Banadir diyaaradani oo ahayd mid military ayaa waxa Soomaaliya u soo dirtay dawladda Qatar waxaana xubnaha kale ee dhaawaca la qaaday kamid ah gudoomiyaha degmada Waarta Saynab Xabaasi iyo xubno kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa dhaawacyadii ku sii sagootiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho iyagoo caafimaad u rajeeyay mas'uuliyiintaasi afayeenka maamulka gobolka Banadir Saarax Umar Xasan Saalax Dheere ayaa sheegay in xaaladda caafimaadka gudoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Abdulrahmaan Umar Ismaan Yariisow ay tahay mid soo hagaagayso markii loo eego shalay waxaana xali laba qalin lagu sameeyay isbitaalka Digfer ee loo yaqaano Urduqan isbitaal ee magaalada Muqdisho maamulka Jubbaland ayaa warbaahinta u soo bandhigay rag ajaanib ah oo ay sheegtay in ay ka barbar dagaalamayeen xogaga al-shabaab saraakiishani ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ayaa sheegay in raggaani ay saddex oo ahaa lagu soo qabtay howlgalla ka dhacay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale saraakiishani ayaa shaaciyay in xubnahani ajaanibta ah la soo qabtay dhamaantooda u dhashay dalka Tansaaniya ma shaacilin hay'adaha amniga ee Jubbaland magacyada raggaasi iyo waxa ay u qaabilsanayeen al-shabaab dhanka kale ma jirto waxa hadalka ka soo baxay dhinaca kale ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ku aadan xubnahaasi qabashada ajaanibtani ka tirsan al-shabaab ayaa ku soo aadayso xilli muddooyinkani dambe ay sii kordhayaan howlgallada ka socda gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya afayeenka maamulka gobolka Banadir Saalax Dheere ayaa faahfaahin cusub ka bixiyay xaaladda caafimaadka gudoomiyaha gobolka Banadir injineer Yariisow oo qaraxii shalay xarunta gobolka Banadir lagu la eegtay Saalax Dheere ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in xaaladda caafimaadka ee duqa Muqdisho Abdulrahmaan Usmaan Umar Yariisow ay soo hagaagayso qoraalkani ayaa sidoo kale waxa uu ku yiri shacabka Soomaaliyeed ee samaha iyo wanaaga jecel waxaan ka codsanaynaa in ay isdejiyaan isla markaana ay ducada ugu soo kaalmeeyaan intii shalay waxyeelada ka soo gaartay falkii xushmadaha dhinaca kale waxa uu Saalax Dheere sheegay inaysan jirin inuusan lahayn bogga been abuurka ah Facebook lagu baahiyay ee la iskaga dhigayo inuu leeyahay duqa Muqdisho Saalax Dheere oo boggaasi tixraacay ayaa yiri waa page been abuur ah oo aan waxba ka jirin isla markaana sawirada Photoshop lagu sameeyay waxaana ku baaqayaa in aanan lagu qaldamin page-kaasi been abuurka ah ee tan iyo shalay la isla dhaxmariyay social media warar kala duwan oo hordhac ayaa waxa ay ka soo baxayaan cidii ka dambeysay qaraxii shalay galab ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banadir oo ah ismidaamin kaasoo dhaliyay khasaaro dhimasho dhaawac soo gaaray mas'uuliyiin fara badan xogta laga helayo saraakiisha amniga iyo madaxda maamulka gobolka Banadir ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyay ee ismidaaminaha ahaa haweeney la socotay gabar araga la maamulka gobolka Banadir u qaabilsanayd arrimaha naafada ee dadka baahiyada gaarka qabo iyadoona ay muujisay inay kaalmeynayso haweeneydan araga la oo ahayd dhawaanba uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banadir injineer Yariisow ee u qaabilsanayd arrimaha naafada
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga Maxamed Tuulax oo aan isagana tagin shirka amniga oo shalay la qarxiyay ayaa laga soo xigtay in haweeneydani la tuhunsan yahay loo fududeeyay in ay gasho xarunta maamulka gobolka Banadir isla markaana baaritaan uu socdo sida loo ogaado wixii ka dhacay xarunta gobolka Banadir ay kamid ahaayeen goobaha sida weyn loo ilaaliyo ee baaritaankeedu adag yahay iyadoona aanan jawaab loo helin sida uu qaraxa u dhacay al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadaasi qaraxa waxaana afayeenka howlgallada ururkaasi al-shabaab ee shaaciyeen in weeraradaasi ay la beegsadeen wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan James Iswan ee xarunta gobolka Banadir shalay tagay balse saacade ka hor xilligaasi qarax u dhacay ka tagay qaraxa laga fuliyay gudaha xarunta maamulka gobolka Banadir ayaa howlkaasi shirkaasi xaruntaasi xilli socday shirka amniga ku saabsan ayaa loo arkay darbaaxo weyn ee ku dhacday dadaalkii amniga caasimadda ee dawladda Soomaaliya oo muddooyinkani dambe sheegtay in ay soo hagaagayso waxaana qaraxani uu dhaliyay su'aalo badan oo ay ku saabsan sida loo sugayo amniga iyo qorshaha al-shabaab aanan laga guuleysan karin marnaba ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa war ka soo saaray qaraxii qasaaraha badan dhaliyay ee shalay gelinkii dambe ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banadir war ka soo baxay xafiiska Yariisow ee lagu sheegay in qaramada midoobay aad ugu xuntahay weerarkaasi isla markaana jimciyada qurumaha ay ka dhaxaysa ay garab taagan tahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sidoo kale James Iswan ayaa tacsi u diray ehladii iyo mas'uuliyadii dadka kale ee ku dhintay qaraxaasi waxaana ambaareynaa weerarkaasi xushnimada ah ee ka soo maleegeen kuwa aan qadarinin nolosha bini'aadanimada ah ee bartilmaameedkoodu uu yahay dadka ka shaqeeya wanaagga iyo nolosha Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banadir ayuu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska James Iswan wakiilka qaramada midoobay ayaa xilligaasi wax qaraxa dhacay daqiiqado ka hor ka baxay xarunta dawladda hoose ee Xamar isagoona kulan gaar ah howlkaasi uu ka dhacay la qaatay gudoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Abdiraxmaan Yariisow al-shabaab oo dusha ku ridatay weerarkani waxa ay shaacisay in bartilmaameedkeedu uu ahaa James Iswan sida ay ku baahisay boggeeda internetka kan waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka war rasmi ah oo ka soo baxayo dawladda caalamiga ah ee wadanka Tunisia ayaa lagu sheegay inuu geeriyooday Maxamed Baaji oo ahaa madaxweynaha wadankaasi wararka ka imaanaya dalka Tunisia ayaa la xaqiijinayaa in isbitaalka military ku dhintay Maxamed Baaji oo ahaa 92 sano jir muddo 5 sano soo maamulayay wadanka dhaca waqooyiga qaaradda Afrika ee dalka Tunisia bayaan ka soo baxay madaxtooyada Tunisia ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu u dhintay cudur maalmihii la soo dhaafay lala tacaalayay madaxweyne Maxamed Baaji ayaa waxa uu ku guuleystay doorashada ka dhacday Tunisia kadib kacdoonkii dalalka Carabta waxaan tan ugu ekaaday wararkii u dambeeyay muraha Soomaaliya iyo caalamka wararka lamid intaan ku wada kulmi doon waxaan idinkaga tagnaa salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkana subscribe noo saar gambarkana furuusi ku soo gaaro wararkii u dambeeyay muraha Soomaaliya iyo caalamka ee aan soo dhigno maadsanid